hore waxaad ku soo dhawaataa telefishinka xisbiga UPD maanta halkan waxa soo imaanay ama aan qayb ka ahayn khudbadda uu maanta ku soo bandhigayay Cabdiraxmaan Odawa inuu yahay musharax maamulka Galmudug Professor Xasan sidoo uu aragtaa maanta waxaad dhageysatay khudbaddii Cabdiraxmaan Odawa bilow ilaa iyo dhabaad bal maxaa adiga aad ka dhihi lahayd marka hore waxaan salaamaa TV-ga cusub iyo shaqada u qabtana waa u mahadnaqayaa intaas dabadeed sida dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ay u hadleen iyo dadka ka soo qayb galay miisaanka iyo culayska ay bulshada Soomaaliya ku lahaayeen marka aad fiirisid waxaad garan kartaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay Cabdiraxmaan isla markaas waxaad garan kartaa baahida loo qabo xilligan la joogo in la dhiso maamul dawladeed oo sax ah oo dadka iyo deegaanka Galmudug u adeega marar fara badan oo hore ama waqtiyaal la soo dhaafay waxa dhacday inay maamulo jireen ama Soomaaliya meel badan ay maamulo ay ka jiraan laakiin maamuladaas aynan ahayn maamulo wax gal ah dawladnimo waxa loo suubiyaa in dadka loogu adeego adeega dadkana waxa ugu horeeya in naftooda iyo maalkooda la sugo kadibna in loo sameeyo horumar dhaqaale iyo adeeg bulsho sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo wadooyinka wuxuu diris leeyahay gobolka kaleeto ee Soomaaliyeed ee la dhaw Puntland ninkii hadle ay san badal shaqo wuxuu yiri waa sida labada Kuuriyo sida caadiga oo la ogyahay midna waa nooshahay oo horumar iyo barwaaqo ka jirta midna dadkeedu waa qaawan yihiin haddii Ilaahay yiraahdo waa in laga dhigaa Galmudug waa in loo dhisaa si ay u dhisantaa Puntland iyo si ka fiican Puntland dhismaha ay dhisantaana waan bogaadinaynaa waxayna noo tahay farxad waxaan ugu baaqaynaa inay sii dhisaan hase yeeshee Galmudugna waxaan rabnaa inay tartan la gasho Galmudug oo sida Puntland oo waxaan rabnaa Galmudug in loo dhiso sida loo dhisay Puntland dad ahaan waa isku dad inta ay xoolo iyo resource leedahana waa leedahay caaw magaalada caasimadda Puntland ee Garowe waa caasimad Soomaaliyeed waa magaalo dhisan oo dadka jooga ama deegaanka ama dadka Soomaaliyeed ku nool ay nolol iyo dawladnimo haystaan hase yeeshee Galmudug ma haystaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool adeega iyo dawladnimada ay haystaan farqiga u dhaxeeya labada gobol waxay tahay wax kale maaha waa political order-ka maamul siyaasadeed ayaa xagga laga sameeyay asaga horumarka abuuray halkana lagama sameyn maamul dawladeed marka si degdeg ah waxaan reer Galmudug ugu baaqayaa inay sameeyaan maamul dawladeed oo sax ah oo dadka Soomaaliyeed ee degan Galmudug wax u qabta oo noloshooda wax ka bedel hadda sidaan ognahay maamulka Galmudug waxa jirta maalmihii ugu dambeeyay ama bilooyinka ama xitaa marka dhahno maamuladii maaragtay ka horeeyay maamulka hadda jira Galmudug waxa jirta dhibaatooyin fara badan ha ahaato dhanka dhaqaalaha ha ahaato dhanka maaragtay hadba marka maxaad kula talin lahayd Cabdiraxmaan Odawa in uu ka bedelo maamulkan طبعا نبرك كوباد waxay tahay طبعا Galmudug waxaan ognahay marka hore dhisay waxoogaa waxa lagu dhisay iyadoo bilow aheed oo marka wuxuuna haday bilow yihiin waa culus yihiin kadibna madaxweynihii marka loo dhiibay ee koobaad madaxweyne Cabdikariin Guuleed arrimo caafimaad dartood ayuu shaqadii isaga tagay kadibna madaxweyne Xaafa qabtay laakiin nasiib darro madaxweyne Xaafa markuu taladii qabtay markii loo kaalmeyn lahaa looma kaalmeyno waa la majaxaabiyay marka majaxaabintii lagu sameeyay madaxweyne Xaaf ayaana ilaa hadda socota waan ognahay waxa ka socda haday tahay dawladda ku meel gaarka haday tahay Galmudug laftigeedii haday tahay al-sunna wal jamaa iyo wixii meesha ka dhacay hadda waxaan rabnaa in la soo afmeero oo markaan la qabto doorasho sax ah oo hoggaan sax la doorto oo dawlad sax la soo biyo dawlad saxna waxay qabato waa la yaqaanaa dadka deegaankaas degan naftooda iyo maalkooda inay ilaaliso inay u adeegto adeeg bulsho oo ugu horeeyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo shaqo abuuris iyo wixii laga rabo dawladnimo wax kale hadii ay qaban waa inay qabataa inta ay qabato walaasheed ama dawladda diriska la ah ee mataqaana Puntland marka madaxweyne Cabdiraxmaan Odawa waxaan asiga ugu baaqayaa inuu u rajaynaa inuu ku guuleysto mudane madaxweyne Cabdiraxmaan ka mustaqbalka waxaan ka rabnaa inaad ka dhistid Galmudug dawlad Soomaaliyeed oo u noqoto model dawladaha kale ee Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada kale waa ogahay waa taqaanaa cilmiga siyaasadda waa baratay wadan broken family sida loo dhiso waa taqaanaa sida maamul dawlad sax loo sameeyo oo laga baxo maamulada iyo dawladaha u suubsan waxa u eg NGO-ga in laga baxo oo aan dhisno dawlad sax ah oo dadku u adeegto